ilmahaada habeenkii ma isku kaadiyaa mise jeclaan lahayd inaad kaadida ka goyso? Ilmaha habeenkii isku kaadinaya asagana ma jeclo oo uu ka murgaya maalintii markii la dhaho waa isku kaadis xalay ama la canaanto, waalidkana dabcan way dhibaysaa. Arrintan ilmaha kaadida ka goynayso waa arrin u baahan waalidku inuu dadaalo, ilmihiina la tababaro, lana caawiyo. Ilmaha marka qaarkoodna ilaa xad waqti la siiyo oo ilmihii loo dulqaato. Marka insha Allah maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo bal tekniigga aad isticmaali lahayd oo sida aad isticmaali lahayd si aad uga goyso cunugaada. Marka insha Allah go'aan haddaad qaadato oo diyaar garowdo, of course habeenkii intuu seexanin kahor waad cunugii inaad kaadi siiso, aad biyo dareeriyo wixii cabitaanka aad ka yarayso. Intaas markaad samayso habeenka ugu hore insha Allah waxaad samaynaysaa waxay noqonaysaa inaad saacad walba aad soo kiciso markuu seexdo ilaa 7 saac laga gaaray. Dabcan hadduu 1 saac ama 2 saac seexday, 3 saac, 4 saac, 5 saac, 6 saac, saacad walba inaad soo kiciso oo aad leedahay soo kac, kaadi ma ku haysaa musqusha gal. Saasaad ku wadaysaa 7 saac markii la gaaro hataa hadduu ku dhaho kaadi im hayso musqusha waad gelinaysaa, waadna ku fariisanaysaa ilaa uu ka kaadinaya ama uu iskiisa ka dareemayso inuu dry yahay. Habeenka labaad markuu seexdo 3 saac kadib ayaad soo toosinaysaa, halkaa waqti ayaad kaadisiinaysaa, kadib uu seexanayaa. Habeenka saddexaad markuu seexdo kadib 2 saac iyo bar kadib. Habeenka afraad 2 saac kadib ayaad soo kicinaysaa oo kaadin, waa 2 saac kaliya, waqti kale ma jiro oo soo kicinayso. Habeenka shanaad 1 saac markuu seexdo 1 saac kadib ayaad soo kicinaysaa. Habeenka lixaadna waxaad leedahay aniga kuma soo kicinay, adaa soo kici ogow. Marka intaas feedback aan soo sameynayna zaid baan ka bilowno saacad walba in la kiciyo 7 saac habeenimo laga gaarayo. Waan haddana soo yareynaa 3 saac, 4 saac ilaa aan soo yareynay on ku keenayna 1 saac kadib inuu markuu seexdo kadib uu kaadiyo. Taas marka feedback ayaad baraysay maskaxdiisa iyo kaadihaystiisa iyo wixiisa inuu barto waayo. Marka insha Allah waqtiba haddana siini maalmo kadib hadduu ka go'o alxamdulillah sidii aan rabnay waa ilaahan ku mahadinaynaa. Haddii aysan ka go'in cycle-kii aad 6 maalin waday ay haddana ku celinaysaa adigoo cunugana intaa positive feedback siinaysa oo leh yacni dhiirigelinaysa mar walba uu sameeyo inaad canaanin maaha inaad dhiirigeliso, inaad cabitaanka ka ilaaliso, in waqtigii uu seexanin kahor aad ka istaajiso, yani aad soo kaadisiiso, waxaasoo dhan adoo samaynaysa. Arrintaas ayaan jeclaystay aan rajaynaya insha Allah hooyinka qaarkood inay strategiga ay isticmaali karaan. Waa anigoo Dr. Cabdiqaadir. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.